marka dhowr qodob ayaan rabaa inaan isku taago ku socota dhammaan wariyaasha Soomaalida marka laga hadlayo wariye who is journalist kuma ayaa journalist wariye waa qof aqoon iyo xifrad iyo aqoon u leh waxa uu doonayo inuu bulshada la wadaago wariyaha waxa looga baahan yahay dhexdhexaad sinaan cadaalad in uu war kasta oo uu markaasi sii deynayo oo hubinteeda u yeesho oo hubiyo badanaaba waxaa dhaca qabado suxufiyiinta iyo dawladda markaasi jirta kala haysata oo ha ahaato wariye caburin ama dil ama xarig lagu xukumo oo aan la soo saarin maxkamad oo daaha oo caqabado badan oo suxufiyiinta haysta ay ka mid tahay laakiin khaladaadka wariyaasha badankoodu iyaga laftigooda in la taabto meel muhiim ah waa muhiim sida sababtoo ahba wariyuhu lama oran karo ma khaldami karo wariyaha khalad uu yeelan kara wariyuhu khaladna marna ma yeelan karo lama oran karo laakiin wariyuhu in uu ka fikiro badqabkiisa waa waxyaabo muhiim ah oo suxufiyiinta la gudboon in maanta ay ku dhaqmaan haddii aad ataagto shakhsi caan ah ama shakhsi bulshada muxtarimku ah oo aad been ka sheegto adiga oo aan caddayn u haynin taasi waxay kuu noqonaysaa caqabad haddii aad qaar kartan xubnaha baarlamaanka oo xasaanad haya haddii aad madaxweyne xasaanad haya haddii aad in hore u soo qabtay xil oo madaxa oo xasaanad leh ama ka tirsan xisbi aad gaar u ataagtid oo aad personal attack ku samaysid caqabad ayay ku keenaysaa ku xisaabtan marka aad doonaysid in aad baaritaan samayso ama aad doonayso in aad warar u soo gudbiso sir ah bulshada waa jirtaan baadigoobka inaad si fiican u baadigoobtid qaabka aad warka kan iyo sida meesha aad ka keentay xagee warkani ka yimi caqabadiba kaaga imanaysaa cadeymo moo haysaa badanaaba waxaa jira facebookyo fara badan oo beejaj loo furtay in shakhsiyaadka ummadda Soomaaliyeed dadka ruuxantii aad loogu kala dilo taas oo ruuxantii aan lagu tilmaami karin qofka propagandada iyo beenta iyo waxyaabo noocaas la halmaana bulshada la wadaaga in uusan noqon karin suxufi bulshada matali kara mar walba suxufi waxaad ka fikirtaa wararka aad soo gudbinayso inay noqdaan run ha noqonin qofka ugu horeeya ee been sheega noqo qofka ugu dambeeya ee run sheega waana mahmaa jirta oo ay Soomaalidu aad u isticmaasho xaqiiqda dhabtaana waxay tahay in wariyuhu uu noqdo for builder wax la yiraahdo Swedish waxaan for builder macnaha sawir ayaa laga qaadanaya waxa tahay maanta haddii aad maanta colaad huriso oo aad beelo walaal ah ama dad islaayay aad ka dhex shaqayso soo faagfaagto xabaalo iyo qabri iyo dad dhintay 100 sano ka hor Soomaalidu aad bay isu laayeen dagaalo sokeeya soo kala dhex maray dhibaatooyin baa soo kala dhex gashay qabiil aan dhibaato loo geysan ma jiro laakiin maanta ma aha in aynu dib u noqono saxaafadahan waa in aynu hore u soconno oo aynu bulshadii Soomaaliyeed ee dhibaatooyinku soo kala gaaray isu soo dhaweyno qaab noocayn isugu soo dhaweyn karna waa in aynu ka shaqeynaa horumarka dalka qaab noocaayad horumarka dalka uga shaqeyn kartaa waa inaad la shaqeysaa hay'adaha ammaanka waa inaad barnaamijyo tayo leh oo wanaagsan aad soo saartaa waa in warkaagu uu soo noqon war dhinac ah uu noqdaa marka saddexdhexaad dhinac ah markan laga hadlayo waxa weeye qolaad soo wareysatay ama mucaarada ahaato ama dawladda ahaato dhinac baad soo wareysatay dhinacii ayaad bulshada la wadaagtay ama page Facebook ama YouTube ama TV baad ka soo deysay ogow warkaagu wali wax weyn baa ka khaldan waana lagu qabsan karaa haddaad hal dhinac aad isticmaashid labada dhinac ba soo qaado adigoo haysta qolada tan hadalkoodii qolada kalena hadalkoodii soo qaado labadiiba balance bay noqonayaan warkaagu wuxuu noqonayaa war run ah cid ku qabsanaysaana ma jirto waxaad noqonaysaa journalist pest journalistaha ugu wanaagsan ayaad noqonaysaa laakiin haddii aad dhibaato u keensato ama aad shakhsi attack samayso ogow wariye caqabad ayay ku noqonaysaa badqabkaaguna halis ayuu ku jira waan ognahay wadanka Soomaaliya dhibaatooyin fara badan baa ka jira oo loo geysto suxufiyiinta Soomaaliyeed ilaa iyo iminka looma soo qaban suxufi dil loo geystay ama dhibaato loo geystay cidii ka dambeysay oo maxkamad lama horkeenin cadaalad darro ayay wariyaasha Soomaalidu aad u tirsanayaan laakiin mar walba wariyuhu waa kii wax dhisa wariyaha wanaagsan waa kan wax dhisa dhawaan waxa dhacay ruuxantii
waxa ka dhacay caalamka oo dhan xanuunkan corona virus ayaa ka jira oo saameyn ku yeeshay meelo badan oo dalka Afrikada hadda Kenya aad ayaa looga dayranaya South Africa iska badaa hadalkeedu xaaladooda aad u qasan tahay oo sufran yihiin dhammaan gobolada dalka Afrika marka ruuxantii qaab noocaad wariyaasha Soomaaliyeed way ilaa wayna ka seexdeen iminka in ay naftooda badbaadiyaan isla markaana markasta wasaaradaha caafimaadku waxa ay sheegaan in 2 mitir aad ka fogaatid markaad wareysi qaadaysid marka aad qof wareysanaysid dabcan markastana isticmaal afkan tan lagu xidho afgashigu waxa ay muhiim u tahay wariyaha afka markaad gashatid badqabkaagu wuxuu noqonayaa mid markaasi aad iskaga difaaci kartid qofka aad wareysanaysid inuu qabo xanuunka iyo kale ma ogi sidoo kale mar walba isticmaal gacmo gashiga mar walba isticmaal waayo mikrofoonka aad diibaysid waa lagu wadaagaya oo qofka kula wadaagaya marka mar walba gacmo gasiga isticmaal hal mar in la qaato gacmo gasiga marka aad qof ku wareysatid iska qabo markaas iska tuur oo markaas gacmahana aad u dhaqo wacyigelintii aad ayay u dambaysaa oo dadkii wali way isku dhex jiraan dad badan baa dhintay lama oran karo xanuunku waa guuray xanuunku waa ku jira dhammaan meel kasta oo Soomaaliya ku jira wacyigelinta aynu badino waynu ilowna wacyigelintii fadlan suxufi ka qayb qaado badqabka bulshada Soomaaliyeed adiga laftigaagu marka hore ka bilow in aad isticmaashid bahashan afka lagu xidho iyo waliba gacmaha tan la gashado oo muhiim mikrofonkaaga marka aad qofka u dhiibto mikrofonku qofku qabsan karaa qofku wuu ku soo dhawaan karaa marka mar walba waxaas muhiim meeshii la taabto xanuunkii wuu sii daarmaya oo ruantii uu ku sii talaalmaya sida wasaaradda caafimaadku ay noo sheegeen 2 mitir mar walba ka fogow shirarka jaraa'id ama goobaha la isugu imanayo ka fogow oo mar walba mitir ku joogso adigoo afgashigaaga wata mana arag xaqiiqda marka loo eego waqtigeedii ugu horeysay mooyaane iminka wariyaasha isticmaalaan qalabkan markaas loogu talagalay in markaasi ay isticmaalaan way ruantii badqabkooda ayaa muhiim dabcan wariye wali xanuunkii waa jira ka fikir badqabkaaga ka fikir bulshada Soomaaliyeed dhibaatada ku iman karta adiga oo markaasi u sawir dadka wuxuu soo gudbinaya hadii aad baanta ka seexato oo aanad ka hadlin in xanuunkani uu jiro cudurkan wali uu ku sii jiro wadankii dadku way isdhiibayaan xafladihii aroosyadii wixii oo dhan dib ay u soo laabteen aad ayaan uga xumahay in la isdhex galo iyadoo aan wali xanuunkii la dabargoynin oo saameyn ku yeeshay Kenya oo aad hadeerto ugu sii faafayo oo Soomaaliya xuduud weyn la leh iyo waliba South Africa oo aad looga dayrinayo oo iyaduna xuduud la leh wadanka Soomaaliya oo ay isaga kala gooshaan dhinacyo badan oo ganacsiga aad ayaan uga xumahay in markaasi uu ku soo baaho ama u soo gudbo wadanka Soomaaliya oo aad isaga laftigiisa looga deernayo maalin walba wasaaradda caafimaadku ay ka hadli jirtay inkastoo ay hadeer ka gaabsadeen oo ay san sheegin tirada rasmiga ee iminka cudurkan qaaday oo dadkii loo kala baxay wala ilaa xanuunkii laakiin idin kama guurin Soomaaliya xanuunku weeydi ku jira fadlan bulshada ka wacyigeliya oo mar walba ka fikira in xanuunkan sidii looga dabargoyn lahaa wariyaasha Soomaaliyeed waxaan leeyahay wacyigelinta badiya oo mar walba ka fikira doorashada iyo loolanka socdana dhexdhexaad ka noqda ma aha inaad shakhsi u ololeyso mar walba ka fikir in aad shakhsi u ololeyso haddii markaasi uusan ahayn warkaagu balansi ama dhexdhexaad mar walba ka fikir in warkaagu noqdo war rasmi oo sugan si markaasi aad u guuleysatid TV-ga iyo goobta warbaahineed u shaqeynaysidna aad u guuleystaan الله يدين عفيدو بني سلامية وتكون هالسنتين داوشة وقت غالي قاعد يورتين وعبسم الشبين والسعودية على برامج كوحترك وريها وموريات الصومالية كوريستو انت نقدم كل من دونه أنا جاي بحدا حقيقة دون TV وحنتكتينا أمان الله.